Hiran Media. Hiran Media YouTube. Hiran Media. wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir looga baahan yahay inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka amni darro ee ka dhacaya Muqdisho. isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho ayuu sheegay wasiirku inuu aad uga mahadcelinayo shacabka degmada Warta Nabadda oo uu sheegay inay ku guuleysteen in ay ka hortagaan dad falal amni darro ka geysan lahaa degmada Warta Nabadda. gaar ahaan waxa uu sheegay in shacabka iyo hay'adaha amniga oo iskaashanaya ay ku guuleysteen inay toogtaan nin bam gacmeed ku weeraray saldhigga booliiska ee degmadaas. waxa uu sheegay in shacabka degmadaas ay noqon doonaan kuwo hormuud u noqda degmooyinka kale ee dalka, waxaana bilad sharaf la siiyey taliyaha booliiska iyo qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. wasiirka amniga ayaa waxa uu sheegay in degmooyin kale looga baahan yahay inay ku daysadaan Warta Nabadda. waxa ay farxad gelinaysaa in maanta amniga ay shacabku soo istaageen iyadoo ayaga isxilqaamayo oo xoog lagu soo wadin ee danahooda ay ka shaqeystaan. marka waxaan rabaa fariin u dir degmooyinka kale nabadda ka wada shaqeeyaan. maalmahanna waxaa facebookyada lagu marin habaabinayay dadka banaanbaxyo aan jirin iyo wax kale loo sheegay. dadku waxaan leeyahay nabadiina ka shaqeysta, annagana waxaan habeen u taagan nafteena hore in amniga nooga hor amniga laga shaqeeyo. marka waxaan ka codsan lahaa waqti oo gaaban in degmada Warta Nabadda ay ka sii laabto dadaalkeeda. aan rajeynaa degmooyinkan ay ku daystaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmo ka hor degmada Warta Nabadda ay ciidamada ammaanku ay ku toogteen nin la sheegay inuu saldhigga degmadaas uu ku weeraray bam gacmeed. Soomaaliya iyo Misr ayaa kala saxiixday heshiis cusub iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliyana uu kaga mahadceliyay dowladda Masar garab istaaga Soomaaliya. sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Saalax Ali Waasuge. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Tanzil Ahmed Ciise Cawad ayaa kulan kula qaatay magaalada Qaahira dhiggiisa Masar Samiin Sheekh. wadahadalka ayaa intiisa badan diiradda lagu saarayay xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar iyo habkii loo xoojin lahaa laguna horumarin lahaa dhinac walba oo adeegyada danaha labada dal iyo danaha labada shacab. waxayna isdhaafsadeen aragtidooda dhacdooyinka iyo horumarka gobolka iyo dunida. kadib markuu idlaaday wadahadalkii ballaarnaa waxaa saxiix lagu duugay 3 heshiis is-afgarad oo ay ka mid yihiin abuuridda hab wada tashi siyaasadeed oo heer wasiir arrimo dibadeed labada dal iyo galeelidda guddi wadaag oo ay hogaaminayaan labada wasiir arrimo dibadeed iyo iskaashiga laba maxad daraasaadka iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Masar. mahadsanid Saalax. guddiga amniga ee gobolka Bari ayaa awaamiir culus waxa ay duldhigeen gaadiidleyda ka howlgala deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Bari. guddigan oo kulan ku yeeshay magaalada Boosaaso waxa ay ka hadleen in loo baahan yahay si loo sugo amniga gobolka Bari iyo deegaanada Puntlandba in ay isdiiwaan geliyaan gaadiidleyda tagaasida ah ee ka howlgala deegaanada maamulkaas, isagoo oo sheegay in diiwaangelintan ay wax weyn ay ka bedeli doonto amniga. kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxaa si wada jira kaga hadlay taliyayaasha ciidamada maamulka gobolka Bari iyo wasiirka amniga ee Puntland, waxaana ay ka soo saareen qodobadan. gaariga ka shaqeynaya arrimaha taksiga iyo arrimaha BLka inuu ka duwan yahay gaadiidka kale oo sida shakhsiga loo leeyahay. shaqadan waa shaqo si fiican loo soo diyaariyay. waxaa lagu sameynayaa diiwaangelin qofka mulkiilaha oo gaariga iska leh. waxaa lagu sameynayaa diiwaangelin qofka wadaha ah oo gaariga wada. gaarigana waxaa loo sameynayaa calaamad. waxaa la rabaa calaamadda gaariga loo sameynayay qofka wadaha ah inay is yeeshaan markii gaariga la istaajiyo oo informationkiisa la weydiiyo. runtii arrintan daafurkan maantay lagu calaamadaynayo baabuurta BLka iyo tagaasida ah waa mid muhiima. waa mid qofku kala garanayo baabuur walba hadda gacantaa loo taagaa. qofkii BL raba iyo qofkii raba taxi mid walba gacantuu u taagaya. laakiin baabuurku markuu kugu soo socdo inuu taxi yahay iyo inuusan taxi ahayn baad kala garanaysa. inuu BL yahay
iyo inuusan biel ahayn baa kala garanaysa. sidaas duqu sheegay waxaa la amrayaa 1 bisha haddii la gaaro lama ogola lamana raaci karo baabuur aan calaamadaysnayn. taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa waxaa ciidamada dowladda uu sheegay inay u diyaargaroobeen dagaal al-shabaab looga saarayo dalka oo dhan. taliyaha ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay munaasabad shalay tababar loogu soo xirayay ciidamo ka tirsan kuwa kumaandoosta soomaaliya oo lagu tababaray saldhigga turkiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho. taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamadan ay horseed ay u noqon doonaan ciidamo kale oo loo diyaariyey inay al-shabaab ka saaraan dalka. aaminsanahay batalinkan horteena jooga mudane prime minister inuu noqon doono batalinka wax weyn ka bedela xaaladda ay ku sugannahay maanta aan ku sugannahay ee ah la dagaalanka argagixisada. waxaanu ku kalsoonahay inay wax badan ka badbadi doonaan haddii ilaahay idmo. waxaan rajaynayaa muddo dhow oo aad iyo aad u dhow inay ka muuqato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkiisuu gutay isuu muuqatay. ayagana waxaan leeyahay ilaahay ha idiin sahlo, annagana waxaan leenahay ilaahay ha nugu garab galo. waxaan rajaynaynaa inaan mataqaana waajibaadkaas aan u qaadano si dhab ah oo aqbalno waxa ummadda soomaaliya naga sugayso, aanu fulino waxa ummadda soomaaliya naga sugayso. mar laba
Hiran Media. Hiran Media YouTube. Hiran Media. Hiran Media.